muuqaal aan soo dhigay baraha bulshada khaasatan youtube-kayga dad badanna ay qaateen pageska iyo facebookada ay leeyihiin ay soo dhigtaan iyo tiktok-ga horta arrintaas falcelin weyn ay samaysay aniga marka hore uguma talagelin inaan qof biniaadan u gafo mana jeclo qof biniaadan inaan u gafo amaba aan jaafaysto ma jecli marka hore aniga ma ogeyn meesha laga jiro iyo qaladka meesha uu ka taagan yahay laakiin hadda waa ogaaday meesha laga jiro iyo qaladka meesha uu ka taagan yahay lacagtiina waa la ii xaliyey aniga shakhsigaa shalay markaan isku dhicin isma dhihinin intaasoo asxaab ah ayuu leeyahay iyo weliba dad annaga aan isku dhownahay oo qaraabo annaga wariyaal asalnahay inay walaal noqon aniga marka hore aniga ma ogeyn laakiin hadda waa ogaaday maasha allah horta ilaha mahad iskale maxamed ciise ninkaas magaciisaan soo qaaday alxamdulillah saaxiibkayga waaye wax badan aan wada shaqaynaynay biniaadankana markay isku dhow yihiin waa qasab qalad uu ka dhacaa qaladka dhacay sida u babajey oo usoo hoyday maxamed ciise asxaabta qiimaha iyo qadarinta mudan kusoo dhawaada muuqaal kale maamuus media production subscribe inoo saara muuqaalkan like gare sidoo kale qaybta commentiga fikirkaaga inoogu qor sidoo kale gambaleelka furo si aad ula socoto muuqaalada maalin weliba halkan aan kusoo gudbino mahadsanid muuqaalkayga maanta waxa uu ku saabsan yahay babajey oo raaligelin ka bixiyey daciyad oo dhowaan u jeediyay nin lagu magacaabo maxamed ciise kaasi oo uu sheegay in youtube-kiisa uu gacanta ku hayay waxa uu sheegay in iminka laga xaalmariyay dhammaan tabashooyinkii uu qabay oo ay ka mid ahayeen lacag uu sheegay in ay ku maqan tahay ninkaasi babajey waxa uu sheegay in lacag gaaraysay ilaa 4,000 oo dollar in ay ka maqan tahay taasi oo uu sheegay in nin shakhsi shaqo ay ka dhexaysay oo ka dhacay sidoo kalena waxa uu sheegay in lacago kale oo dhan ilaa 2,000 oo dollar inuu horay shakhsigaasi uu kaga dhacay arrintan ayuu si aada ugu dhaleeceeyey ninka lagu magacaabo maxamed ciise isagoona ka codsaday dhammaan dadka ku nool dalka Kenya in ay la xisaabtamaan ninkaasi ayna uga soo celiyaan lacagta uu youtube-kiisa ka saaray hase yeeshee iminka waxa uu cod dheer ku sheegay in gebi ahaanba arrintaasi laga xaliyey oo uu ku fududaaday in uu arrinkaasi isagu ka sheego shakhsigaasi waxaana uu ku sheegay in laga heshiiyey arrinkaasi isagoona weli ka cudur daartay hadalladii iyo tuunkii uu ka muujiyey maxamed ciise waxa uu yidhi maxamed ciise aad baan uga raaligelinaya isagii qoyskiisa ninkaasi waxuu ka mid yahay ehelada asxaabta iigu dhow ee aan jeclahay sidaa awgeed waan ka raaligelinaya qaladaadkii iga dhacay buu yidhi babajey dhowaan waxaynu ogeen inuu ku sugnaa waddanka Kenya halkaasi oo howlo caafimaad uu joogay sidoo kalena waxa uu booqanayay cisbitaallo kala gedsan oo ku yaala magaalada Nairobi waa magaalada Nairobi ee dalka Kenya aan iraahday halkaasi oo siyaabo kala duwan uu la kulmayo dhaqaatiir ku takhasusay cudurrada kala gedsan isaguna si weyn rajo uga muujiyay in cagihiisa ku istaagayo waxa uu sheegay in xaaladiisa caafimaad lala tacaalay sidoo kalena rajo badan ay jirto sidoo kalena ballamo badan ay u qabteen dhaqaatiirta halkaasi ku nool iyadoo la filayo in mar kale uu dib ugu soo noqdo cisbitaalada ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya babajey ayaa inta uusan dib ugu laaban dalka Kenya waxa uu la kulmay dadyow kala duwan oo xiriir iyo wada shaqayn ay ka dhaxaysay dhowaan ay ahayd markii uu shaaca ka qaaday in dhaqaale badan laga dhacay youtube-kiisa sidoo kale waxa uu sheegay in lacago uu gacanta ku hayay oo uu sheegay in akoon bangi ay ku jirtay sidoo kalena maadaama uu isagu ka yimid Soomaaliya shuruudaha iyo sidoo kale habraacyada lacagaha lagula baxo hanaanka bangiyada uu aad markaasi ugu cudur daaranayay in uusan aqoon in uu hawshaasi u igmaday shakhsi uu lagu magac daray maxamed ciise oo uu sheegay in kaasi uu lacagtaasi ka xoogay sida uu hadalka u dhigay hase yeeshee iminka waxa uu sheegay in raaligelin buuxa uu siinayo maxamed ciise isla marhaantana dhaqaalihiisa iyo lacagtii uu sheegaya inay ka maqan tahay dib ay ugu soo noqotay